caasimada labaad ee dalka Zambia Indola ayaa waxa hay'adda Badr Islamic Organization ka wada howlo badan oo isugu jira faafinta diinta islaamka wacyigelinteeda iyo waliba iyagoo halka ka dhisay malcaamado badan oo lagu barto diinta islaamka waxaana maanta magaalada Indola ka bilowday imtixaankii sanadlaha ahaa ee madaaristaasi iyo machadyada dalkaasi ku yaala sida Sahan TV channel oo u sheegay agaasimaha guud ee hay'adda Badr Islamic Organization ee ka howlgasha dalka Zambia fadilatu Sheikh Abdirasaaq Sheikh Hussein Muuse waxaana maanta mas'uuliyiintaasi soo booqdeen machadka Al-Hidayah halkaasoo ay u kuurgalayeen sida imtixaanka uu u bilowday saaka. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Maanta waxaan u fadhinaa imtixaanaadkii sanawiga ahaa la qaban jiray mar walba madrasada idaaradda ay qaban jirtay guud ahaan Badr Islamic Organization oo ka asaasan muddo dheer dalka Zambia madrasada maanta ay ka dhacayso madaarista maanta ay u qabanayso imtixaanad waxa kamid ah markazul hidayah lidaraasati wa tawciya qaybteeda madrasada iyo qaybta macadkaba marka kulli insha Allah ta'ala maanta diyaar bay yihiin imtixaankaas maanta uu dhacaya waxaan ku soo dhaweynayaa hadda Germanka guud idaaradda Badr Islamic Sheikh Abdirasaaq Sheikh Hussein Muuse تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وصو شيخي شيخ عبد الرحمن ما أنت عارفين إن شاء الله امتحانكي ما أنت يبري لوالد وسعود دونا أنا عرضك قادمه مركز الهداية قيبت معتي قيبت تكسيجا عرضنا وحنا نريد شيء يقول وبالله التوفيق ما أنت قرآنك على قاضية برينا إن شاء الله وعلى قاضي دونا ما دوينكي si kastaba ha ahaatee tan iyo xilligii laga aasaasay dalka Zambia hay'adda Badr Islamic Organization gaar ahaan magaalada Indola oo ah caasimada labaad ee dalka Zambia ayaa waxa deegaanadaasi si weyn looga dareemayaa iftiinka diinta islaamka.